دي لا مقليو خمين وناكسن في عن martida barnaamijka iyo xeeldheerayaasha afka Soomaaliga iyo mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada akademiya goboleedka af Soomaaliga caawa barnaamijkan soo abaabulay. Anigu warkaygu waa koobnaan doonaa maadaama uu macallin abwaan Siciid Saalax uu waqti ku filan inuu ku sheegay taariikhda af Soomaaliga iyo muhiimadda afku leeyahay iyo Soomaaligu meeshuu kaga jiro adduunka oo ka soo bilaabay ilaa iyo faraacintii iyo hadda sida xaal yahay. Anigu waxaan tilmaami doonaa keliya adeegsiga af Soomaaligu sida uu hadda ka yahay maaragtay hay-adaha dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha jiri kara iyo sida looga bixi karo oo aan ku taabayo hadalkii fiicnaayo macallin Siciid Saalax. Inta aan se u gelin hadalka waxaan rabaa marka hore inaan cabiro dareenkayga diiran ku saabsan sida aan u dareemayo inay sharaf tahay in maanta ay caawa golaha kan ballaaran oo aqoon-yahano badan oo rag iyo dumarba isugu jira ay afka Soomaaliga xeeldheerayaal ah ay ku jiraan uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah xukuumadda Soomaaliya saaxiibkay Mahdi Guuleed Khadar oo anigu hadalkiisii aan ka soo daahay farsamadii haysatay daraaddeed. Sidoo kale waxaan filaynay madaxweynaha dowlad maamul maxaa la yihahdaa goboleedka Ethiopia saaxiibkay Mustafa Cagjar oo isaguna isaga iyo Mahdiba ay yihiin xeeldheerayaal afka Soomaaliga iyo luqadaha guud ahaan ay caawa goobtan la joogi lahaayeen. Waxaa kaloo sharaf ii ah in akademiyadan aan rajaynaya inay golaha ku jiraan inay aan meel la joogno xeeldheerayaal anigu runtii aan ku hirto maxaa la yihahdaa aqoontooda afka Soomaaliga oo ay ka mid yihiin Professor Cabdalla Mansuur ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo, abwaan Siciid Saalax oo aynu hadda dhegaysanay oo cilmigiisa iyo aqoontiisa aragnay, Dr. Cabdinaasir Ibraahim, qoraa Axmed Faarax Idaaja, qoraa Zaynab Aadan Sharci, odaga weyn oo taakuleeya suugaanleyda iyo afka Soomaaliga aqoontiisa Ismaaciil Taani, qoraa Siciid Jaamac Xuseen. Intaasi waa qolyo anigu runtii aan aad u daneeyo inkastoo qaarkood aanan la kulmin warkooda iyo xogtooda iyo aqoontooda. Marka sidaas ayay sharaf iigu tahay in akademiyadan ay qaybta ka yihiin aan caawa qayb ka ahaano. Intaanan hadalkayga kooban u gelin waxaan iyadana mudan in loo mahadnaqo dadka barnaamijkan soo abaabulay oo kulligood aanan gaari karin sheegi karin laakiin aan ka xusayo Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha akademiyadda oo ah qoraa iyo xeeldheere iyo khabiir afka Soomaaliga ah tabantaabiyana maaragtay af Soomaaliga siduu u horumari lahaa una ciidma iyo inaan dhowaan bartay oo inaan weli face to face wajahan u kulmin laakiin aan arkay aqoontiisa oo la yidhaahdo Mustafa Fayruz oo qayb weyn ka ahaa barnaamijkan soo diyaarintiisa iyo xiriiryaheena
ku xeel dheer xiriirinta cabdiraxmaan abtidoon iyagana waa u mahadnaqaynaa. intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan tilmaamo marka hore bishaaro ah in afka Soomaaligu uu nool yahay, uu kobcayo, uu mustaqbal fiican leeyahay. waxaa daliil u ah arrintaas in afka Soomaaliga lagu adeegsado ama loo adeegsado adeeg kasta ummadda Soomaaliyeed dhex mara, oo ka mid yahay adeega lagu fuliyo howlaha dowladda, oo sida uu sheegay abwaan Said Saalax uu constitutionka ama dastuurka dalka uu ku qoran yahay in afku uu yahay af Soomaali afka rasmiga ah ee dalku. dowladda ama xukuumadduna ay aad ugu dadaasho in la adeegsado. waxaan ugu markhaanti ka ahaa marar badan oo golaha wasiirada inta la keenay qoraallo af kaleeto ku qoran uu ra'iisul wasaaruhu yiri naga joojiya oo haddaad rabtaan inaad wax noo sheegtaan afka dalka kusoo qora iyo dadka Soomaaliyeed, oo markaa dib loola noqday oo Soomaali lagu soo qoray. sidoo kaleeto inkastoo uu tilmaamay khaladaad yar yara aan farsamo xumo marmar dhacda oo Said Saalax uu tilmaamay, haddana sharciga dalku waxa weeye in af Soomaali loo adeegsado howlaha dowladda iyo sidoo kale ganacsataduna ay adeegsadaan, ama meel kasta culummada nafteedu ay maaragtay dadka ku wacdiyaan ama ay ugu sheegaan diinta afka Soomaaliga. marka sidoo kaleeto waxaan anigu ogahay afka Soomaaligu inuu aad uga kobcayo dalalka ka baxsan meelaha Soomaalida af Soomaaliga looga hadlo ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka baxsan, sida dalkan walaalaha nahay Djibouti, dadkan walaalaha nahay gobolka Ethiopia, ismaamulka Soomaaliyeed ee Ethiopia jooga, iyo Soomaalida joogta Kenya intaba, iyo weliba sii dhaafo Soomaalida joogta qurbaha, oo sida aan ognahay Professor Said Saalax uu ka mid yahay dadka af Soomaaliga ku dhiga jaamacado ku yaala dalalka galbeedka dunida, ama sida gobolka Minnesota. anigu waxaan markhaanti u ahaa anigoo maraya magaalada Minneapolis inaan arko meelaha dadku basas ka raacaan maxaa la yidhahdaa iclaano ama announcements ku qoran afka Soomaaliga oo meelaha ku dhegan, taasoo muujinaysa afka Soomaaligu inuu tarmayo oo meelo dheer uu gaarayo. sidoo kaleeto Torontona waan ku arkay. marka waxaa muuqata afka Soomaaligu inuu meelo badan oo dunida ka mid ah looga hadlayo, waxna looga qorayo. sida aad ogtihiin wadamo badan ayaa madaxdoodu dadka Soomaaliyeed ugu tahniyadeeyaan ama waqtiga xorriyadda Soomaalida 1 Luulyo, ama ciidaha Islaamka afka Soomaaliga. waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Canada intaan xusuusto, iyo madax kaleeto oo galbeeda. marka afkii Soomaaligu horta kor ayuu socdaa, wuu nool yahay. Soomaaliyana aad ayaa looga adeegsadaa. sidaan idiin sheegay aad baa loo adkeeyaa in afka Soomaaliga xafiisyada looga adeegsado.
anigu taa markhaanti baan u ahay oo wasaaradda ayaan madax ka ahay marka waa ogahay shaqada wasaaradda ka socota iyo sida af soomaaliga looga adeegsado iyo wasaaradaha kaleeto qoraalladan isdhaafsano iyo golaha wasiirada soo jeedinta laga sameeyo ama sharciyada la gudbiyo oo la ansixiyo oo ay waajib tahay in af soomaali lagu tarjumo marka af soomaaligu waa xidaysanaya mustaqbal fiicanna wuu leeyahay waxaas laakiin jirta sida professor abwasaciid saalax uu tilmaamay daabis ama nuqsaan adeegsiga af soomaaliga marka taasi waxaa sabab u ah aniga bay ila tahay hadda ka horna madal saan oo kaleeto ah oo akademiyadu lahayd waan ka tilmaamay aabahaas siday ku yimaadeen maanta kuma noqonayo waxaase jirta af soomaaligii inuu weli la'yahay maaragtay standardization ama qaabayn la isku raacsan yahay iyo marjac ama meel loo noqdo si loo kaashado haddii kelmado luqad kaleeto ku jira la rabo in la tarjumo ama haddii loo baahdo in maxaa la yidhahdaa kelmadaha qaarkood nuxurkooda la dhadhansado tusaale ahaan waxaa la soo jeediyey xeer la yidhaahdo xeerka iibka qaranka marka annagu markaan iskoolka dhiganaynay af soomaaliga wax ku baranaynay xisaabta iibka iyo gadashada laba macnay kala lahaayeen waa buying iyo selling ayay kala ahaayeen marka waxaa buyingna loo baray inay tahay gadasho ama wax soo gadasho sellingna ay tahay wax iibin ama wax iska iibin hadda maadaama uusan standardizationkii uusan jirin ama suguddii sida af soomaaliga loo adeegsado iibintii iyo gadashadii waa isku sibaa loo adeegsadaa marka xeerkaas markii la baasgaraynayaan damcay inaan tilmaamo sida ugu habboon oo af soomaaliga loogu dhigi karo marka dadkii meesha jooga waa ila yaabeen waxaan u ekaaday qof maaragtay yani nitpicking samaynaya ama maaragtay waxyaabo yar yara ku dhegan sidaa daraaddeed waxaa kaloo jirta sida burburka ummadaha ku dhaca markay dowladnimadooda waayaan markay dagaalo sokeeye iyo qax galaan sida nolosha oo dhami uga qasanto ama maaragtay maxaa la yidhaahdaa ugu yimaado kala go ama disruption ugu dhaco ayaa afkuna uu isaguna dhaawac gaarayo agoon noqda laakiin sidaan tilmaamay waa innagaa kasoo kabanayna mathalan hadda qofkii fiiriya sugaanta soomaalida heesaha hadda la alifo iyo dhalinyarada heesta waxaad arkaysaa dhowr sano ka hor siduu ahaa in hadda hal abuurka iyo curintu ay ka xoog badan tahay waxaan anagu aragnaa ummad soomaaliyeed oo hadda u hiloobaysa dhalinyaro ah adeegsiga af soomaaliga oo ku faanaysa oo weliba si qurux badan u yaqaana oo qaarkood ay dibadaha kusoo dhasheen ama qaar dalka ku dhashay laakiin dadkaasi waxay u baahan yihiin si luqaduna sideedana luqaduhu dadka yaqaana maaragtay linguistiska way garanayaan luqadda nafteedu ka sokow inay caafimaadkeedu ku xiran yahay caafimaadka bulshadeeda horumarkeeda maxaa la yihahdaa ismaamul dowladeed horumarkeeda dhaqaale horumarkeeda suugaaneed horumarkeeda aqooneed
horumarkeeda aqoon cilmiyeed ayaa af soomaaliguna uu la koraa. marka innaga inta aynu halkaas ka gaarayno afkeennu dhutin wuu yeelanayaa. marka haddaan soo gebagabeeyo, waxaa cilladahaas marka kuwa in la dhibsado ay tahay hadda maaha, waase kuwa ay tahay in loo feejignaado, isha lagu hayo, oo sidii markaasi loo daaweyn lahaana looga gudbi lahaa looga tashado. tilmaantooda iyo kacalaacalkooda waxba tari mayo. wax badan anfacaya haddii laga fekero oo akademiyadda aynu maanta joogno madasheeda iyo maamulada Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan jira hadday ku dadaalaan sidii loo heli lahaa jiilal iyo macaahid iyo akademiyooyin si fiican u shaqeeya oo soo saara cilmi iyo aqoon afka Soomaaliga loo adeegsanayo. sidaa daraaddeed ayay aan ugu hanweynahay, sharafna noogu tahay in akademiyadu maanta ay maaragtay horumarkan ay gaarayso. aad ayaan ugu farxay markii la ii sheegay in akademiyadu ay leedahay jabtaro badan oo ay meelo badan ka howlgasho, Jabuuti iyo Jigjiga iyo maxaa la yidhahdaa Garissa iyo gobollada Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya gobolladoo dhan ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Kismaayo inta u dhaxaysa ay jabtaro ku leedahay. weliba ay jabtaro ku leedahay dalka dibaddiisa meelaha ummadda Soomaaliyeed joogto. marka arrintaasi waa arrin runtii yididiilo leh, rajo fiican gelinaysa ummadda Soomaaliyeed adeegsigooda iyo ku dhaqankooda afka Soomaaliyeed, afka Soomaaliga iyo horumarintiisa. marka waxaan bogaadinayaa akademiyada, waxaan ballan qaadaynaa inaanu maaragtay garab taagannahay, waxaanu ku faanaynaa macallimiinta iyo aqoon-yahanka gabdho iyo wiilal leh, rag iyo dumarba leh, ama rag iyo haweenba leh, oo ay ka mid yihiin culimmadii aqoon-yahanadii aan tilmaamay, ka shaqaynaya sidii una istaagay sidii maaragtay maxaa la yihahdaa afka Soomaaliga dhan kasta looga toosin lahaa wixii ka dhiman, inagoo madaxa ku haynayna in arrintaasi ay u baahan tahay dadaal iyo waqti. marka aynu se isha ku haynayno meesha la tiigsanayo af Soomaaligu inuusan keliya la qorin keliya, laakiin inuu noqdo mid xagga wax soo saarka aqooneed kala mid ah maxaa la yidhaahdaa luqadaha u dhigma ama la mid ah. waxaa yididiilo leh in Ethiopia mathalan ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu mar ku hadaaqay inuu ka dhabayn doono maqaan inuu af Soomaaligu noqon doono luqad ka mid a luqadaha Ethiopia looga hadlo. I think inaanan sirka ka shifayn, laakiin uu yiri waxaan kusoo dari doonaa luqadaha Ethiopia looga hadlo af Amxaariga hadda ah in rasmiga is Soomaaliga iyo Oromada iyo Tigrayguna ay ka mid noqdaan. waxaan markhaanti ka ahay anigu dalka Jabuuti af Soomaaligu horumarka ku dhacay 2000 markii ugu horreysay Jabuuti af Soomaaligu wuxuu ahaa wax xadidan ama waan ku qosli jiray walaalaha reer Jabuuti si af Soomaaliga ugu hadlaan. maantana magaalada Jabuuti waxaa ka jira maaragtay oo waa meeshii lagu aasaasay akademiyadan maxaa la yihahdaa goboleedka. waynuna ognahay madaxweynaha Jabuuti maada ka gaartay inuu noqday aabe iyo ururiye afka Soomaaliga iyo dadka u adeega. sidoo kaleeto Kenya maxaa la yihahdaa maraan la sheekaystay mas-uuliyiin jooga adeegsigooda afka Soomaaligu wuxuu ahaa
heer sare oo weliba muujinaysa inay ka tarjumayso ama ay cabirayaan aqoonta ay u leeyihiin majaalada ama meelaha ay iyagu markaa xeeldheerayaal ku yihiin oo aad arkaysid iyagoo raadinaya inay kelmadaha ingiriiska ay yaqaaniin oo si heer sare u yaqaaniin conceptska qaarkood ay isku dayayaan inay af soomaali u adeegsadaan in marka loo soo dejiyo maamulka iyo ganacsiga waxay u baahanaysaa sida aynu u qurxinno afka soomaaliga qoraalkiisa iyo awooddiisa hal abuur waa mahadsantihiin sharaf ayay noo ahayd inaad idinkala soo qayb galo barnaamijkan